بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي المهنة ونكسن qodobada ciyaaraha ugu waaweyn ama qodobka ciyaaraha ugu xasaasisan waxaa kamid ah Leo Messi oo iska diiday inuu tago xarunta lagu baaro ciyaartooyda iyo tababarka. idaacadda raadiyo Catalan ayaa sheegaysa inuu xidiga kooxda Barcelona Lionel Messi uu iska diiday inuu maalinta Isniintii soo xaadiro tababarka isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub. xidiga Barcelona ayaa maalinta Isniinta imaan doona garoonka tababarka si looga qaado si ay u maraan baaritaanka xanuunka coronavirus ka hor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka cusub. Messi ayaa wakiilkiisa u adeegsaday una sheegay kooxda Barcelona inuusan soo xaadiri doonin tababarka kooxdiisa isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub. Arrinkan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii Messi uu maamulka kooxdiisa u gudbiyay warqad bixitaan ah. Maamulka Barcelona ayaa ilaa haatan ku adkeysanaya inuu xidiga uusan iib ahayn ilaa kooxdii ay doonayso saxiixiisu ay bixisay lacag dhan 700 milyan ee lagu burburin karo heshiiskiisa. sidaas daraadeed Lionel Messi ayaa qaaday talaabada uu ku diidayo tababarka in uu ku qasbo kooxdiisa inuu isaga tago isagoo xor ah. waa tahay muuqaalka xigta ku kulmi doona waxaan idinka tagay siyaasiyiin